madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan golayaasha wakiilada Somaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay ururka geelayaasha Somaliland oo lagu qabtay Garabis oo kamid ah deegaanka Faraweyne kana tirsan gobolka Maroodijeex waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka geelayaasha Mustafa Cali Ducaale oo xusay ahmiyadda iyo ujeedka ay u aasaaseen ururkan isagoona ku dheeraaday qiimaha ay leeyihiin caanaha geelu isagoona sidoo kale sheegay in maanta adduunyadii oo dhan ay wada fahmeen faa'iidada caanaha geelu ay leeyihiin ka war ahaanna ay doonayaan in ay dibadda u dhoofiyaan caanaha geela marka ay dalka wada gaarsiiyaan ugu dambeyntiina waxaa madashaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo weliba horumarinta beeraha oo dhammaantoodba waxay ku wada dheeraadeen qiimaha uu leeyahay dhaqashada geela iyo caanihiisuba waxaanay dhammaantoodba wada ballan qaadeen in ay kala shaqayn doonaan ururkan sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa loona fahansiin lahaa qiimaha uu geelu leeyahay